هي هو عندك عارف والله. maleeshiyada al-shabaab ayaa subaxii hore ee saaka weerar ku qaaday deegaanka shabeelle ee koonfurta mudug halkaas oo ay saldhig milatari ku lahaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa deegaanka oo garabsanaya ciidanka daraawiishta galmudug. weerarkan ayaa la sheegay in lagu ekeeyay fariisinka ciidamada milatariga Soomaaliya ay ku lahaayeen aga deegaanka shabeelle ee koonfurta mudug. inkastoo macluumaad dheeraad aan laga heli karin haddana wararka ayaa intaasi ku daraya in dagaal xooggan oo muddo qaatay oo halkaas ku dhex maray milatariga Soomaaliya ciidamada deegaanka iyo kuwa daraawiishta oo isku garaba iyo maleeshiyaadkii weerarka ku soo qaaday deegaanka shabeelle ee koonfurta mudug. geesta kale toddobaadyo wax ka yar ayay ciidamada dowladda Soomaaliya lumiyeen fariisimihii ugu muhiimsanaa ee koonfurta mudug kadib weerarkii maleeshiyaadka al-shabaab toddobaad ka hor ay ku qaadeen fariisinkii ciidanka dowladdu ay ku lahaayeen deegaanka caad ee koonfurta mudug. wax ka badan 5 bilood ayay qaadatay in lagu qabto deegaanadaas ciidamada dowladdu wax ka yar toddobaadka ay ku lumiyeen. inkastoo si rasmi ah aan loo ogeyn sababaha banjariyay howlgalka ciidamada dowladda oo kaashanaya xoogga deegaanka iyo daraawiishta galmudug, maleeshiyada al-shabaab ayaa fursad u arkay inay ka faa'iideysan karaan habsaanka ku yimid howlgalladii joogtada ahaa ee ay kala kulmayeen ciidamada ku sugan koonfurta mudug. qabashadii magaalooyinka xinlabi, bacadweyne, camaara, shabeelle iyo qeecada ayaa sahashay in maleeshiyaadka al-shabaab ay lumiyaan fariisimo ay ku lahaayeen koonfurta mudug horaantii bishii Agosto sanadkii aynu ka soo gudubnay 2023. balse howlgalka oo sii socday sababayna in gacanta lagu dhigo deegaan istiraatiiji oo ah isku socodka camaara iyo sidoo kale xaradheere waa caadi ayaa ugu dambeyn halkaas ku hakaday, taasoo maleeshiyaadka fursad u siiday inay dib u soo laba kacaleeyaan deegaano kale oo muhiim ah wax ka yar toddobaad gudihiisna ay gacanta ku dhigaan.